madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tababar u soo xiray dufcadii ugu horeysay ee ka qalin jebisa kulliyadda tababarka ciidamada Turkiga ee Soomaaliya. madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay dowladda Turkiga dadaalka ay la garab taagan tahay dowladda Soomaaliya taas oo qayb ay ka tahay tayeynta iyo dib u dhiska ciidanka qalabka sida. waxaan idin haynaa abaal weyn oo ku aadan sida qiimaha badan ee aad noo garab istaagteen. siyaasadeena arrimaha dibadda waa mid ku saleysan iskaashi cid walba u furan. madaxweyne Farmaajo oo si gaar ah markaasi ula dardaarmay ciidankan oo dhameystay dhammaan tababarada ciidanka lugta ayaa faray inay ka soo dhalaalaan himilada iyo shaqada ay ka sugayaan shacabka Soomaaliyeed. waxaa tihiin kuwa aan doonayno inay aasaas u noqdaan ciidamada amniga dalka shacabkana ka samata bixiya dhibaatada ay ku hayaan argagixisadu. si taas loo xaqiijiyo waa in aad ku tilmaaman tihiin dhaqanka iyo anshaxa ciidannimo ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. sidoo kale munaasabada ayaa khudbado waxaa ka jeediyay wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga taliyaha ciidanka xooga dalka taliyayaasha iyo howlwadeenada kulliyadda. saraakiisha iyo askarta tababarkan qaadatay ayaa u soo bandhigay madaxweyne Farmaajo dowladus ay ku muujinayaan xirfadooda iyo sida ay markaasi ugu diyaarsan yihiin difaaca iyo adeegida dalka iyadoona uu guddoonsiiyay abaalmarino askarta kaalmaha hore ka galay tababarka. ugu dambeyntii madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa loo soo bandhigay qalabka iyo hubka dufcadan isagoona kormeeray fasalada iyo goobaha ay tababarka ku qaataan ciidamada.